waxaa maanta magaalada Gaarisa gaar ahaan jaamacadda Mustaqbal oo ah jaamacadda ugu weyn Islaamiga ee gobolka Waqooyi Bari ayaa maanta lagu qabtay doorasho qof iyo cod ah ay sameysteen ardayda hoggaanka u ah jaamacadda. Tartankan ayaa waxa uu u dhaxeeyay Sheekh Cali Barre Cabdi iyo Sheekh Cali Cusmaan oo codeyntan ay ka qayb qaateen 70 arday oo kamid ah codadkoodana ka dhiibtay halkaasi. Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man talah amma ba'du إن شاء الله تعالى وحن باللابنينا دورشدني وأسكت جلنا ما أنتوا أحدها وحن قبلنا سنين جامعة مستقبل إن يقبضوا اتحاد الطلبة إن يقبضوا دورشي انتخابات أي ترتميان لبا فصل مستوى الرابع ومستوى الخامس inta aanan doorashada guda galin insha Allah ta'ala waxaan ku furfuraynaa wax lagu furfurto waxay ugu fiicnaa ugu khayr badnaa kalaamullahi subhanahu wa ta'ala wana akhrin doono alqari Ahmed Tabane Muhammad falyatafaddal mashkuran a'udhu billahi minash shaytanir rajim إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. qaar ka mid ah ardayda jaamacadda guddiga la soo saaray ayaa maamulka guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen natiijada doorashada oo ku guuleystay Sheekh Cali Barre Cabdi. 72 cod baa dhacday 43 cod waxaa helay Sheekh Cali Cusmaan Sheekh Cali Barre 27 waxaa helay Cusmaan Shaalle 2 codna way halowday. doorashadii marka saasi ku dhacday natiijadaasi ku soo baxday u dambeystii natiijadii waxa ku guuleystay imaamkeena Sheekh Cali maadaama anaga aan dooranay sunnah jibin ma ya ayuha alladheena aamanu adiicu allaha wa adiicu rasuula maxaa ka dambeeya idan yajibu alaykum daacatuhu alaysa kadhalika ma lam ya'mur bima'siyatin sama لأنه لا ضاعة لمخلوق في معصية الخالق نينكا هذا الكيس هلا يلو على قدام بيو جامعة النظام يلا كان رمائي كلا دنبين
hogaamiyaha cusub ee dalladda ay ku midaysan yihiin ardayda jaamicadul mustaqbal Sheekh Cali Barre Cabdi ayaa dhankiisa sheegay in si dhab ah ugu adeegi doono ardayda maanta dooratay waajibaadkiisana uu gudan doono isagoona u mahadceliyay shakhsiga la tartamay ayna wada shaqeyn ka wada dhaxayso hortu marka koowaad lillahi alhamdu lahu alhamdu fil ula wal aakhirah kul hore kul damba ilaahi ba maad iska leh thumma ba'da dhalika ba'da allah ilaahi kadib waxaa mahad iska leh dhammaan culimadii aan hadayna idin sheegay ee jaamacadda mustaqbal haday yihiin dadka wax la baro iyo kuwa wax baro iyo kuwa maamulka hayo dhammaan odayaasha akhyaarta meesha aan ugu nimid oo adeer Xuseen had uu nagala fadhiyo adeerkay Xuseen Axmed Raage way daneynayeen adeerkay dhaqana sidoo kale saaka wuxuu nagu yiri Sheekh Maxamed Warmeesha ka tagi maayo waxa saa loogu daneynayana wax kale ma ahan waa ahmiyada ay leedahay ardaydan iyo dadkan meesha joogo runtii dadka waan iska xignaa dadka magaalada Gaaris joogo inteena iska xigno ba xaqiiqo noqotay oo aan isku ehelnahay oo wixii qof walba wixii dhibaka kala u dhibayo ma sha Allah ajiib marka kulli khayr baan u qaadanaynaa ilaahay idamkiis haddii la igu shubana caana geel baa shuul ii dhaabi lahaa waan u malayn caana geelan insha Allah waa la igu shubi doonaa biidin ilaahi subxaanahu wa tacaala laakiin intaasoo dhan waxaa iiga sharaf badan oo iiga qiimo badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay midkii ii qadaray inaan maraaxishan oo dhan soo maro oo aan maanta u adeego culimada jaamacadda joogto aniga oo ku faraxsan u adeegidooda waxaan idin ballan qaadayaa haddii ilaahay ba inooleeyo caafimaadna alle isiyo tawfiiqdan alle waafajiyo inaan idinku adeego sida aad jeceshihiin ee khayrka ah maxaa yeelay inta khayr baad u timaadeen khayr baadna soo doonateen dhammaan rag iyo dumar waan idin adeegi waxaa weeye wax alla wixii baahidiina ana intii karaankayga waan qabani waanan maaragtay idin garab taagan dhanka kale Sheekh Cali Cusmaan ayaana aqbalay natiijada doorashada ee ka dhacday jaamacadda mustaqbal isagoona sheegay inuu la shaqeyn doono hogaanka cusub ee ardayda maanta ay doorteen bismillah alhamdulillah tanabbillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du ikhwani wa akhawati wa mahsantiin jazakumullahu khairan haddaan ku guuleysan waayo doorashada ma in liin horta waxa u tartamaynina waxa way in mataqaan hadii ogaho inaan guuleysanayo ma tartamayno saxan laha waxa uu orday inaan dhici karo waan filinay marka ma sii dheereena khayrul kalaam qalla wa dalla jazakumullahu khairan sha'alina insha Allah ta'ala wa wada shaqeyn doona assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ardada juhdiga iyo maartay waqtigooda soo galiyay aad baad u maasantiin ardayga jaamiciga waxa loo baahan yahay in uu maartay uu yahay ruux lagu daydo sababtoo ka jaamici marka tahay wax kasta waa qawaaniin lawaaix meel kasta board lagu soo dejiyaa jirta meel lagu soo dejiyo calaamaadka jirta guruubo la isku soo diraa jira waa inaad la socotaa oo halkaasi aad connecting aad ku ahaataa arday jaamici ama telefoon ma haysta iyo xafiis inuu dawo wareego maxaa la yiri iyo maxaa dhacay taas loo baahan wixii la soo nashrin wala soo nashrin marka ra'iisul kulli oo shu'uun talaba asagana juhdigan weyn uu sameeyay asagana haniyan la kaayaan leenahay gaabena marka maanta meeshan waa meel farxadeed Sheekh Cabdi Shakuur ninkan la doortan u tahayniyeenina iyo kooxdiisa waa Sheekh Cali Cabdi Barre Hambalyo haddana qiyaadadii ardada lagu soo wareejiyay ilaa garabkaada ha galo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ardadeena sharafta leh aad iyo aad aan ugu mahadnaqaynaa waa maasantihiin boqolkiiba boqol sharaf baad leedihiin waa inay ducaynayna waana tacaawunaynaa insha Allah ta'ala quraanka wuxuu ku dhisan yahay mabda'a siyaasadda waxa kamid ah mabaadu shariica asiyaas sharciyo waxa kamid ah waxay ku dhisan tahay nolosha laba arrimood التعاون والتشاور ما قشين ولقى لبدا هايلوبن التعاون مع الأخ والتشاور مع الزميل لبدا القرآن كشيء وأمرهم شورى بينهم وشاورهم دكتيتا سرعة الإسلام بشقاكم لها دكتيتا الشيب أنا شقاكم لهن هذا هي مسلم حتى دور سيدنا شيخ واسلام سيدنا صحة سيدنا بصحة الديمقراطية الإسلامية واسلام
سموجد إسلام كدكتيتا يقف مدح على ميلان كل مايا إسلام كل سنة التشاور والتعاون ولا تشي حاجة مسكح هذا وحسن قبصة حاجة جركة إلى يقول وتعاونوا على البر صلاة هذا في المكان تكون هاي واسجدوا واركعوا بالله وهو جماعة ماشي لكن هاي مفهوم كمركة ماشي كجر القرآن وحويان نولشة وعكل سنة هاي وحسن قبض وذا جر قعمة وحالي وذا جر بي وعكو جويان هذا القرآن كفيرية قفك مسلم كأي ولا لك قفك كلا وحكول مديا هل الجر مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم دين تينا ما يقول سنتين التكاتف والتعاون والتشاور والأخوة ولا لما كل وحنا ولا لا كأب واحد وكأم واحد وين ساء من تا ذاتك ولا عليه مسلمين تا وهل جسد وهل هو يعد شيء هل أبا ولا لا ولا لماذا مد قبيل كماها مد نسب كان معها ولا لماذا الرسمي القرآن هو شيء محويان إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو مسلم من باب هذا مركز عن تعاون عن استعداد عن احترامنا روح كاستوى مقام كلية هاي هذا أرض تاعي مقام بالله شرف بالله منزل بالله هذا معلن تاعي كذلك هذا الوجود إمام قف كمامل كجورو ميشوا ليه وهو قدريا